maalin maalmaha ka mid ah wiilal dhalinyaro ah ayaa wuxuu soo koray gaari rakaab ah. Marka gaarigana waxaa fuulay 4 qof oo kale. Marka sidaa waxay ku ahaayeen 5 qof. Gaariga markuu cabaar socday si lama filaan ah gaariga waxaa soo raacay nin aad u weyn oo xoog leh. Marka ninkan markuu gaariga soo koray gaarigii wuu buuxay. Kadib wuxuu arkay wiilkii yar oo xoogaha boos fiican fadhiya. Kadib wiilkii yara ayuu gaariga xoog ugu dejiyey. wiilkii markii gaariga laga dejiyey wiilkii xoogaha wuu murugooday. isaga dhan wuxuu dareemay bahdilaad. xitaa wiilka wuxuu tamaninayay uu rajeynayay in uu hub haysan lahaa si uu ninkan uga aarsado. adig wiilkii kadib wuxuu istaagay laamiga muddo 2 saac ayuu laamiga taagnaa. adig ugu dambeyn gaari kale ayuu helay. sida ayuu gaariga ku raacay. markuu gaarigiis wiilkii cabaar socday oo uu wiilkii iska murugaysnaa hal mar ayaa wuxuu arkay gaarigii markii hore laga soo dejiyey oo shil galay. dadka gaarigaas saarnaa oo dhan ay dhinteen oo uu ku jiray ninkii isaga gaariga xoog ugu soo dejiyey. kadib wiilkii ilaah ayaa u mahad celiyey waayo ninka gaariga uu soo dejinayay kheyr ayuu ahayd laakiin wiilkan wuxuu umaleynayay shar. marka saan waa adduunyadan waxa adiga shar umaleynaysay ayuu ilaahay subxaanahu watacaala kheyrkaaga dhigi doonaa. haddii wiilkan fiiri gaariga markii laga soo dejinayay xoogaa wuxuu dareemayay bahdilaad iyo in ninkan wuxuu sheegtay laakiin ilaahay subxaanahu watacaala wax kale ayuu ka badbaadinayay. inkastoo ninkan maalintiis uu dhimanayo haddana fiiri arrinka cajiibka ah oo dhacay iyo siduu ilaahay wiilkan u badbaadiyey. alxamdulilah ilaahay mahad leh. marka haddaan bini aadannahay waxaa nagala rabaa mar walbo inaan ilaahay ku mahad celino. xaalad walba aan ku jirnana alxamdulilah inaan dhahno oo aanan dhihin ilaahay muxuu sidaan ii yeelay maxaa sidaan laygu samayn waaye. mar walba waxaa dhahdaa alxamdulilah.